وعند وديال qodobada wararka caawa fagaare production kuudu ugu door karoon waxa kamid ah wabiga Shabeelle oo ku fatahay deegaano hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe hal sano kadib maanta oo kale waxa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ku geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo mas'uuliyiin kale Jubbaland oo war ka soo saartay sida loo xalinayo xiisadda ka taagan gobolka Gedo iyo khilaafka dawladda federaalka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo amar ku bixiyay in la furo galbaariseed karana shaqaalaha dawladda ee ehladoodu ay ku jiraan al-shabaab dawladda federaalka Soomaaliya oo hawada ka celisay diyaarad qaadsiday oo laga leeyahay dalka Kenya caalamkana waxaan idin hayaa Iran oo Mareykanka ku eedeysay isku day ay ku soo ridi lahayd diyaarad wadankeeda laga leeyahay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka caawa ee Fagaare Production haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee caalamka markale waan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa hal sano ayaa laga joogaa maanta oo kale 24kii July markii qarax lagu weeraray xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana qaraxaasi ku dhintay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir maanta oo kale 24kii bishii July ee sanadkii 2019 xilli galab ah ayaa qarax ismiidaamina waxa uu ka dhex dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana qaraxaasi ku geeriyooday mas'uuliyiin badan oo ka tirsan gobolka Banaadir xilliga uu qaraxa dhacayay waxa socday kulan uu shir gudoominayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaana dhaawac culus oo qaraxaasi ka soo gaaray injineer Yariisow uu ugu geeriyooday dalka Qatar 1 bishii Agoosto dadka qaraxaasi ku geeriyooday waxa kamid ahaa gudoomiyihii degmada Cabdilcasiis Sabax Cabdullaahi Asad gudoomiyihii degmada Waaberi Mahad Cilmi gudoomiyihii degmada Shangaani Sahro Sheekh Maxamed agaasimihii nadaafadda Cabdifataax Cumar Xalane agaasimihii shaqaalaha gobolka Banaadir Cabdullaahi Dheere la taliye dhanka sharciga ahaa Xasan Sabriye iyo mas'uuliyiin kale maanta ay ku beegan tahay waxaana laga joogaa hal sano iyadoona weli dawladda federaalka Soomaaliya aysan cadeynin cid isku qarxisay xarunta gobolka Banaadir maanta magaalada Muqdisho waxa baroordiiq loogu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Yariisow iyo mas'uuliyiintii kale ee ku dhintay qarxi ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana lagu qabtay munaasabad lagu baroordiiqay magaalada Muqdisho iyadoona ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin badan oo ka tirsan dawladda federaalka uu kamid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute iyo mas'uuliyiin kale mar haddii lagu soo xiro hogaanka baarista qofkaasi haddii la geeyo xeedhaalintii loo geeyo maxkamadihiina loo sii geeyo oo ay ogolaadaan xarigiisa ayagoo fiirinayo eedda lagu eedeynayo maangalnimadeeda fiirinayo qofkaasi xarigiisu waa sharci waana xalaal xarigiisu magaca iyo sifadu qaadanayna waa qof eedeysana oo la dacweynayo ilaa ay maxkamadda ka bariyeesho ama ku xukunto haddii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeerdhaalin iyo maxkamad toona oo aanan sharciga la geynin qofkaasi wuxuu ku xiran yahay sharci darro waana xaraam xarigiisa sifada iyo magaca uu qaadanayna qofkaasi waa qof afduuban cidda afduubtana meel kale ha ka raadin waa mas'uulka xukuma meesha uu ku xiran yahay amniga goormo sugmaa su'aasha jawaabteedu maxay ahayd amni goormo sugmaa amni wuxuu sugmaa markii xogta iyo howlgalku ay midaysan yihiin waxyaabaha aan rabno ay baaristu inay qabato waxa kamid ah dadka saraakiil ama mas'uul ama shaqaale dawladeed oo ehelkiisa iyo aqribadiisa ay argagaxisada jiraan waa ina gal dacwadeed loo furo su'aalo la weydiiyaa haddii ay cadaatay inuu ogayo xogtiisa uusan gudbinne dacwad ciqaab lagu soo ogaasi tilaab looga qaado sidaan u aamusnayn oo shib u dhaheen oo nin kasto mas'uul loo dilaay oo qofka ka muhiimsan loo dilaay muwaadinkii koowaad ee caasimadda injineer Yariisow waa gurigiisa inta loo xafiiskiisa inta loo galaa la qarxiyay asiga iyo mas'uuliyiintii kale ee caasimadda ka shaqeeyay awgalkiisa hadda ku qoran waa in galkiisi furaada intii laga gaarayo qofkii dambi faalihi rasmiga ah intii laga helayo waa inuu galkiisa furnaada kaliyana ma aha waa inuu kobca mar kasto oo la ururiyaa xogaha la xiriiro dhacdadaasi wuxuu ka hadlaa xaashida tusaalaha baarista diyaariyada la indaajino hadda faylasha inta badan diyaariya ma lagu soo xiraa baarayaasha tiin way weydiinayaan aaway buugaagtii booliis ku shaqeyn jiray oo biiga marka laga tago buugaagtii booliis ku shaqeyn jiray record ka ahaa buugga dambiyada buugga dacwadaha
buugga hantida maxbuuska buugga dembiyada waxaa lagu qori jiray any dembi oo dhaca dembi kasta oo dhaca soo maaha haddii la qabtay iyo haddaan la qabaninba soo maaha raadkii aawo waa in la tagaa goob kasta si waa inay diyaaro u ahaataa goobtii wax ka dhacaanba inay tagto oo raadadkii soo ururiso xataa haddii kiiska nabad sugiddu ay baarayso caawimay ka noqonayaan waxay u geynayaan raadadkii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya oo ku soo socotay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho sida ilwareediyo lagu kalsoon yahay ay xaqiijiyeen diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda duulimaadyada ee Jetways Airlines oo ka diiwaan gashan dalka Kenya ayaa wixii 80 qof oo rakaab Soomaali ah kuwaas oo diyaaradda ay u soo kireysay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya xogta aan helnay ayaa sheegaysa in diyaaradda sababta loo celiyay ay tahay qaad lagu soo qariyay oo la ogaaday markii ay diyaaraddu soo duushay mas'uuliyiinta shirkadda ayaa la sheegay in ay dowladda Soomaaliya ku soo wargeliyeen in diyaaradda uu saaran yahay qaad aysan ogeyn oo lagu soo qariyay arrintan ayaa la sheegay inay u sameeyeen si ay uga hortagaan in diyaarad laga mamnuuco Soomaaliya haddii qaad laga helo marka ay soo degto mas'uuliyiinta shirkadda Jetways ayaa markii hore la xiriiray hay'adda duulista rayidka Kenya ee loo yaqaano KCA kana codsatay in diyaaradda la soo celiyo balse ay u sheegeen in ay ka baxday hawada Kenya taasi oo keentay inay la xiriiraan hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ee loo yaqaano SCAA tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmada Jowhar oo xarun u ah dowlad goboleedka Hirshabelle oo maro webiga Shabeelle ayaa waxaa laga soo warinayaa in uu karkaarada ku jabsaday saacadii la soo dhaafay tuulada Baarey oo dhanka waqooyi magaalada Jowhar dhacda ayaa la soo wariyay in daadadka fatahaada gudaha ay u galeen waxaana barakacay qoysaskii halka degnaa oo cabsi xoogan maalmihii la soo dhaafay ka qabay webiga inuu fataho dadka deegaanka waxay inoo sheegeen in buq tuulada ku taala oo biyaha webiga isu taagan ay jabsatay biyihii ku jiray waxa ay ku soo rogmadeen xaafadaha dadka deegaankana way barakaceen mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle oo tuulada tagay ayaa gurmud u sameeyay qoysaska danta yar ee isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato ku noolaa tuulada Baarey oo webiga ku fatahay webiga Shabeelle ayaa karkaarada ku jabsaday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan tuulooyin iyo xaafado ka tirsan degmada Afgooye waxaana ka barakacay qoysaskii halka degnaa xilli roobaadkii iyo waqtiga Itoobiya uu roobka ka da'o oo ay biyo badan soo raacaan webiga waxa uu karkaarada ku jabsadaa deegaanada dalka uu maro waxaana jirin biyo xireen lagu xakameeyo kolka webiga uu buuxsamo waana tan keentay in joogto ay noqoto fatahaada maamulka Jubbaland ayaa war cusub ka soo saaray habka loo xalinayo khilaafka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya kadib kulankii dhuusamreeb ku dhexmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Axmed Madoobe agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jubbaland Maxamed Axmed Sabriye ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo Jubbaland ay ku heshiiyeen in khilaafka muddada soo jiitamayay si hoose loo xaliyo xal waarana laga gaaro khilaafkii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland si xalka dambays ah looga gaaro khilaafkaasi waxaa loo wajahay qaab farsamo kaasi oo natiijadiisa la sugayo ka hor shirka dhuusamareeb 3 ee loo balansan yahay 15 Agoosto 2020 Basaam ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha la isku dayayo in xal loo helo ay ka mid yihiin arinta gobolka Gedo oo ka mid ah waxyaabaha xasaasiga ah ee labada dhinac isku hayeen dhinaca kale dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin arintan hayeeshee xubno ku dhow villa Soomaaliya waxay Fagaare Production u sheegeen in maadaama waqtigii dowladda uu sii dhamaanayo ay ka hartay dagaalkii ay kula jirtay maamulkaasi Jubbaland qoraaladii dhawaan ka soo baxay villa Soomaaliya ayaa Axmed Madoobe ugu yeeray weli waxa daawanaysaan wararka Fagaare Production markana wararka caalamka warbaahinta dalka Iran ayaa soo tabisay in diyaarad dagaal oo uu leeyahay Mareykanka ay si khatar ah ugu soo dhawaatay diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay Iran taasoo mareysay qadka hawada ee Suuriya inkastoo sheegashadaasi uu beeniyay Mareykanka wakaaladda wararka Iran ee IRIB loo yaqaano oo ku hadasha afka dowladda ayaa sheegtay in duuliyihii diyaaradda Mahan Air uu ku qasbanaaday in uu si degdeg ah u bedelo heerkii uu ku duulinayay diyaaradda taasoo sababtay in ay dhaawacmaan qaar ka mid ah rakaabka muuqaal ay shaacisay IRIB ayaa muujinaya in diyaarad oo laga arkayo daaqadda diyaaradda Iran iyo mid ka mid ah rakaab oo wajigiisu dhiig ku yaalo hayeeshee militariga Mareykanka ayaa goor dambe sheegay in diyaaradoodu oo nooceedu ahaa F-15 ay masaafo nabdoon u jirtay tan Iran diyaaradda Mareykanka ee nooceedu ahaa F-15 oo roondadeedu caadiga ah ku jirtay kuna duulaysa hawada Suuriya waxay si caadi ah u cabirtay masaafaha ay isu jiraan iyada iyo diyaaradda rakaabka ee Mahan Air wax khatar ahna ma jirin labada diyaaradoodna waxay isu jireen qiyaastii 1,000 mitir ayaa lagu yiri bayaan uu Khamiistii soo saaray Captain Bill Arban
oo ah hafayeenka taliska dhexe ee Mareykanka wuxuu sheegay in cabirkaasi ay saameeyeen saraakiisha militariga ee ku sugan saldhigga Mareykanka ee ku yaala Altanif oo u dhow xadka Ciraaq iyo Urdun. guud ahaan waa naga intaa warkii caawaad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku mahadsantihiin daawashada warkeena. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. nabadgelyo.